Assalaamu calaykum soo dhawow daawade waxaan idin wadaa muuqaal taxane ah oo aan kaga hadli doono taariikhdii dowladdii Cusmaaniyiinta ama Ottoman Caliphate. Muuqaalkani waxaan ugu talagalay inaan dib u xasuusano taariikhdii Islaamka. Waxaan kaloo ugu talagalay in ardayga dhigta galaaska afraad ee dugsiga sare uu ka helo fikir guud. Assalaamu calaykum soo dhawow daawade waa Ustaad Cabdiqaadir Maxamed. Waxaan idin wadaa muuqaal taxane ah oo aan kaga hadli doono taariikhdii dowladdii Cusmaaniyiinta ama Ottoman Caliphate. Muuqaalkani waxaan ugu talagalay inaan dib u xasuusano taariikhdii Islaamka. Waxaan kaloo ugu talagalay in ardayga dhigta galaaska afraad ee dugsiga sare uu ka helo fikir guud. Waxaan filayaa inaad ka heli doontid muuqaalkan. Muuqaalkani waxa uu ka koobnaan doonaa ilaa 4 qaybood. Qaybta hore waxaan uga hadli doonaa qaybta hore ee taariikhda ee dowladda Cusmaaniyiinta. Qaybta labaad waxaan uga hadli doonaa qaybtii dhexe ee taariikhda. Qaybta saddexaad waxaan uga hadli doonaa gabagabada taariikhda. Qaybta afraadna waxaan uga hadli doonaa su'aalo ku jira iyo su'aalihii imtixaankii qaran ee dowladda ee laga soo bilaabay 2015 ilaa 19. Sanadkii 1256 miilaadiyada oo ku beegneyd sanadkii 656 hijriyada markii ay Tataarkii uu Holaku hogaaminayay Baghdad qabsadeen oo ay dad iyo dunyaba baabi'iyeen ayna dumiyeen dowladdii Cabbaasiyiinta ee muddada dheer isku xiraysay muslimiinta caalamka oo dhan oona udub dhexaad u ahayd. Isla sanadka ayaa waxaa Aasiya yar ku dhashay Cusmaan bin Erdogan oo ahaa ninka ay ku abtirsadaan dowladda Cusmaaniyiinta oo mar labaad soo celisay heybadii Islaamka iyo muslimiinta oo qarniyo badan hogaaminaysay. Cusmaaniyiintu waxa ay asal ahaan ka soo jeedaan qabaa'ilka Kaya oo ay ku abtirsadaan Turkiyiinta Ugus, waxayna qayb ka ahaayeen dowlad beeleedkii Turkiga sameeyay iyagoo hayaan ka soo bilaabay bartamaha Aasiya qarnigii 10aad ee miilaadiyada, xagga galbeedna afka saaray. Dowladdii Turkiga ee Salaajiqada ama Seljuks loo yaqiin ayaa ka sii horeysay iyagu markaas deganaa dhulka Bershiya bilowgii qarnigii 11aad bilaabay inay sii hayaamaan jasiiradda Anatolia oo maanta ay Turkidu degan tahay. Bilowgii qarnigii 11aad ayuu Sulaymaan Shaah oo duqbeeleed ahaa beeshiisii hayaan soo geliyay isagoo ka soo raray dhulkii Turkiga asal ahaan u lahaayeen ee ku yaalay xadka Shiinaha. Sulaymaan Shaah oo Cusmaankii koowaad awowgii ahaa wuxuu ku haftay webiga Furaad markii ay ka talaabayeen, wuxuuna maanta ku xabaalan yahay meel u dhow dhulka Syria. Sulaymaan Shaah markii uu halkaasi ku geeriyooday labadiisii wiil way iskhilaafeen oo nin wuxuu ku taliyay in dhulkoodii hooyo ay u laabtaan, kii kalena wuxuu ku adkaystay hayaankii aabihii bilaabay inuu sii wado ilaa uu ka gaaro meeshii uu higsigoodii ahaa. Ninkii go'aanka dambe qaatay wuxuu ahaa Erdogan oo Cusmaankii koowaad aabihii ahaa. Qabaa'iladiina waa ay kala qaybsameen, qaar waxa ay la laabteen ninkii ku taliyay in dhulkoodii hooyo loo laabto, qaybna Erdogan ayay raaceen oo hayaankii ayay sii wadeen. Waxay dhulkii Aasiya yar ugu tageen dowlad halkaas ka talinaysay ee loo yaqiinay dowladdii Turkiga ee Salaajiqada ama Seljuk oo dagaal culus kula jirtay dowladdii Roomanka Byzantinia. Markaas ayay muslimiintii u hiiliyeen oo dagaal dhawr jabin ah ku qaadeen Roomankii. Boqorkii Turkida Salaajiqada ee Alaadiin la oran jirayna waa uu ku farxay walaalihiisa ku soo biiray, wuxuuna dhul ka siiyay dooxa ku taalo aagga hore ee Roomanka. Halkaas ayuuna Erdogan ka aasaasay maamul goboleed hoostaga dowladdii Salaajiqada. Kadibna waxa ay bilaabeen inay dhulkii sii ballaariyaan oo ay iska sii riixaan Byzantiniyiintii. Daawade intaas ay noo joogto qaybtii koowaad ee dowladdii Cusmaaniyiinta ama Ottoman Empire.